بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم horta aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan imaado oo aan ka qayb galo maaragtay Abu Bakar Sidiiq oo maaragtay ardaydaas u quruxda badan ay quraankii dhameeyeen aad iyo aad waxaan ugu marka horeysa u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka xigana waxaan u mahadnaqayaa waalidkii caruurtan ku soo dadaalay marka saddexaadna waxaan u mahadnaqayaa macallimiintii iyo maamulka Abu Bakar oo rintii si hufan oo maxaa la yiraahdaa loo bogo maxaa la yiraahdaa ardayda maaragtay u soo tababaray quraankana u baray rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadiis wuxuu ku yiri waa sida Sheekh Absaaq xash sheegayay khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama waxa idinku khayr badan ummadda Nabi Maxamed hadaatihiin qofka quraanka barta dadkana bara buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala dhulkan ina keenay Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala inoo qadaray inaan nimaadno inaga oo muslimiina oo waliba madmadow oo ka yimi geeska Afrika Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inagu asturay in culimo ay inoo dadaaleen oo masaajidada inoo dhiseen iyo maraakista dadkii aynu dhulkan ugu nimina ay ina soo dhaweeyeen Soomaaliyan tagayo waa dhaweyd oday baa wuxuu igu yiri adeer Minnesotadu ma Mareykan bay ku taalaa dadkan inta ka maqlaa inkastoo aan jeclaa in qaab nashiida aan ku soo bandhigo haddana caadi baan u akhrin doonaa waxaan idhi Minnesota waa gobol aan ruux madow iyo muslimiinta lagu dhimin madaxda iyo shicibkaba waxaan nahay macaarif waxaana ku marxaantiya de madax baan ku leenahay Cabdi Warsame iyo Siyaadiyo waxaana ku marxaantiya madax baan ku leenahay Minnesota waa gobol aan ruux madow iyo muslimiinta lagu dhimin maraakiis islaamiyo madaaris quraan iyo masjidaan ku leenahay waxaana ku marxaantiya midhihii ka soo baxay ayaan maanta aragnaa mahad waxaan u qirayaa mawlaha ilaahay macbuudkiina untay maalikal muluugi intuu Maxamed soo diray mugdigii iyo habeenkii maalin nooga yeelay ardaygan mas'uul adag ama mas'uuliyad adag waalidkii ku maamulin aabe midigta soo qaban hooyana mataanayn oon macallinkiisana mushahaaro loo qorin halku marayo lala socon oon quraanka loo marin ma mumtaaso waligii maanta se waxaynu aragnaa waalid soo mujtahiday mahad baan u qirayaa mahad waxaan u qirayaa mashaayikhda Soomaal ee maraakiis islaamiya iyo masjidada abaabulay haddana waxaan insha Allah ta'ala aan marinayaa gabaygii quraanka rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiskii aan ku sheegay ardaydaas ayaa inoogu khayr badan maanta inteena meesha joogta ruuxi quraanki iyo xifdiya qowlkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ruuxi quraanki iyo xifdiya qowlkii nabigeena qaarigii tajwiidka uu xifdiyay qiimo lagu sheegiye qarnigii uu nool yahay khalqigu way qadariyaane oo qiimuu ku leeyahay bulshada qadir suu yidhi yaa inoo khayr badan de macallimiinta ardayda inoo bartay inteena kale halkaasaan iska soo fadhfadhinaay qiimuu ku leeyahay siduu qadirka yidhi qarnigii uu nool yahay bulshadu way qadariyaane qasas iyo markuu shucara iyo daha baqara soo qaato ikhfa iyo idhaar iyo qunaa lagu qiraayo oo qira qabato ilmadu qubato daankiisa inuu qayru naas yahay ayuu qiray rasuulkii qudha haddii waayo mar qudha ruuxda laga qaado
malaa'igu qaasiyo qareen duulaya imaane qunyar bay u qaataan nafta ee kuma qalloocsaane qabrigii la geeyaba rabbigay wou qaboojaaye cayayaan maquuto jidhkuna qudhun ma soo daayo qol ka mida ciddu way qadarisaa dhulkuna wou qushuucaaye qol jannada ka midaba qabriga looga dhigayaaye qiimaha waxa iska leh qof qur-aanka qaybo qaadir diinta siiye ma wax laga qadaaba maalintii qiyaamiyo markay qaraxdo baaruudu qubuurahana laga soo baxay qolaba meelaado kaannahum ilaa nusubin yuufiduun baa ilahay yidhi markuu ka warramayay dadka qubuurahana laga soo baxo qolaba meelaado qalalaasaha iyo dhibtiyo qaxar ka duulaya qoraxdoo la soo gaabiya qadra mid la soo dhigiye qalalaasaha iyo dhibtiyo qaxar ka duulaya dhibta laga qarshaa oo hadhkii qaadir buu geliye qiimaha waxa iska leh qof qur-aanka qaybo qaadir diinta fahamshee ma wax laga qadaaba maya taaj qiima saa'ida leba qorta loo sudhiye ehelkiyo qaraabadu rabbigii uga shafeec qaadi qiimaha waxa iska leh qof qur-aanka qaybo qaadir diinta fahamshee ma wax laga qadaaba qalbigii qur'aan aan ku jirin waa qalfoof madhaane rasuulka sal alay wasalam saasuu yidhi qalbigii qur'aan aan ku jirin waa qalfoof madhaane waa guri qabyo ah oo dumiyo qara dameeraade qarax iyo abaar weeye iyo qarfa iyo abaar weeye iyo qaraxisiinaye qarfa iyo abaar weeye iyo qaraxisiinaye orodo qur-aanka iyo baro qowlkii nebigeenna oo qaariga tajwiid oo qaariga firiga ka baro quruxso diintaada qaraamiga iyo heestaha haddaad qaanac ku ahaatid oo raabka aad qaayibtood jaaska qurux moodid qalbigaagu kaad gelisid buu qaadi karayaaye qof aadamiya oo laba qalbi ila qadir ma abuurin ma jacala allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi okay anoo dadajin doona gabay kale aan ku xijinayaa inaan fiican aabbihi dhalaa waa ayaan badaane inaan fiican aabbaha dhalaa waa ayaan badaane aslaynkiyo minhaajkiyo tuxfiyo aaladu baraane afka carabigu baran xaqaa lagu ogaadaye arkaantii islaamkiyo dhammaan tiradii iimaanka ashahaadataynkiyo xaquu ku addimayaye oo imaam ayuu noqon ilayn wuu istaahilaye awlaad islaam lagu korshaa aayatin wacaane adduunka iyo aakhiraba waa ku anfacayaye abbow sidaa yeel markuu qaato amarkaaga oo uurkaadka faraxdaa sidii igadh maqaareeye anshaxiyo asluubtiisa wacan edab ku dheeraada markaad eegto inanku qalbigu ku istareexayay iyo mid surweelka halkaa ka ridaya iyo inabadan quruxda badan markaad eegto inanku qalbigu ku istareexayay abbow sidaa yeel markuu qaato amarkaaga oo uurkaad ku faraxdaa sidii igadh maqaareeye awlaad islaam lagu korshaybaa aayatin wacaane adduunka iyo aakhiraba waa ku anfacayaye haddii ay arwaaxdan u tagto iilka lagu geeyo qabrigu xitaa kugu anfici kaaninkaar qabiine igaarkii wanaagsani ducuu ku aqriyayaaye istikfaar allow saamax buu aabbahay oraano allah bariga uu ku baxshoba ku iqbaal noqon hay waa gabdhihi ilaahay subxaana wa tacaala ugu magacaabay waxa weeyaan sangu baa wuxuu yidhi mar North America meelahan uu barnaamijka ka dhigayay ayuu wuxuu la hadlayay gabdhaha Soomaaliyeed wuxuu yidhi hadduu seegay aabbuhu isagu marinkii toosnaa may samirto hooyadu salkii reerka weeye ya waxa weeye hadduu aabbuhu bay hoofo oo meel ka dhaco oo hooyadu ay maxaa la yiraahdaa ay ladan tahay reerkaasu waa ladnaanaya laakiin hadday hooyadii sal kacdo aabbuhu waxa laala wuxuu qaban karaa ma jiro gabdha muuminaad oo xaqii mahada le qaatay
gabdha muuminaad oo xaqiimahada leeqaatay maraakiisda diintiyo dacwada maalin laga waayin masjidada mashaayikh fadhida ama mucallima inta gabdhii macallimiintii ma arkee ama macallima محسنات إلهي قرتيو شرفكم ماموسا محسنات إلهي قرتيو شرفكم ماموسا أن حجابك مقعي سديل أما سميدامين مرسلكي ورسولكي هبلا راعي مرينكيسا مفتاحي أدونكيو جند الله بدا ميلود با إنو مولاهاي السين يا موران لوياني maalinta qiyaamo khalqigu wada madoobaado mashaqada ayaanta jirta laga maxjuubaaye maryama iyo caashay jannada meel la tagayaane habla iyo how mintida diintu waa marinkii toosnaaye masalooyin aan keeno oon gabay ku mahmaaho sidii meel tuskii hore u maro hogoli maashaysay oo uu kudkuda u mirayo mayay ku soo laabtay dhirtu ay magoosho mankiyo u bixi ay saartay maalkuna ku dhalay oo khalqigu nabad ku maasheeyay oo ay masnadu doog tahay oo milicdu ay hayso maanta nin joogiyo nimcada lagu murqaamayo marwa dumar midiidiin laba lagu masaalaaye hablayow mintida diintu waa marinkii toosnaaye masalooyin aan keeno oon gabay ku mahmaaho masalooyin aan keeno oon gabay ku mahmaaho muslin hooyadiisaa tihiin macallinkii diinka muslin hooyadiisaa tihiin macallinkii diinka idinka mashaayikh dhaliyo culuma meeqaam leh idinka mashaayikh dhaliyo culuma meeqaam leh idinkoo mas-uuliyadii iyo minankii dhowraaya idinkoo marwooyinoo haddana hawla maamulaya idinkoo marwooyinoo haddana hawla maamulaya oo minankii reerkiinna iyo maqashi dhowraaya oo minankii reerkiinni iyo maqashi dhowraaya musxafkiiyo qur-aankiiyo sunnada muxafidaysaane muslin hooyadii saa tihiin macallinkii khayrka hablayow mintida diintu waa marinkii toosnaaye masalooyin aan keeno oon gabay ku mahmaaho mugdi iyo habeen daaha rogay oon dayaxu muuqan ninka geela waxa garanaya dadka reer miyiga uune mugdi iyo habeen daaha rogay oon dayaxu muuqan ninka shan gaari ka luntay 2014 ka war oo ka cararto soo dhib maaha waqtigaas halkaas uu geelu joogi jiray Soomaalida kaalintaas uu kaga jiri jiray mugdi iyo habeen daaha rogay oon dayaxu muuqan ninka maydab geelu kalumay murugtay laabtiye waa inuu mujtahidu haddana marada goostaaye marada gaabshaaye dooxadii masaaliyo isagoo maraya meelowdan dayixii intuu soo mudhiyidhay maalin u ekaatay mar qudhana ku soo baxay haliho mirani maygaagle miisaanka farixiisa baan cidi malaynayne marwa dumar midii diin labaa lagu masaalaaye hablayow mintida diintu waa marinkii toosnaaye hablayow mintida diintu waa marinkii toosnaaye haddii aad murwada aad qabtaa diinta marinayso musxafkiiyo qur-aankiyo sunnaha mawle ku adeecdo oo ay mudeec ku tahay oo maqasho weedhaada adduunyada mugeedaad heshiyo weliba maamuuse addunya mataac wa khayru mataaciha imraatu saalix adduunyada mugeedaad heshiyo weliba maamuuse hablayow mintida diintu waa marinkii toosnaaye haddaad maal qabeen sare tahayood shaaco magacaagu maraakiibta dooshtiyo haddaad miigag lalinayso oo ay marwadu kaa xun tahay ma laha aasaase marwa dumar midiidiin labaa lagu masaalaaye hablayow mintida diintu waa marinkii toosnaaye gabayga hooyadan ku soo gabagabaynaya insha Allah hooyadu inay qaali tahay hubanti weeyaane layskuma hayo waa midaan hadalka taagnayne waa geed hadhweyn oo khalqigu ku hiranayaaye aabbahoo halgamayo naftiyo huraya maalkiisa hadalkii rasuulkay xaqnimo uga horaysaaye ninbaa nebiga u yimi reer miyo
وحي رسولك لو ددك يا ايغو حقله صدح جير بو يري هويدا hadalkii rasuulkay xaqnimo uga horeysay halka diintu saartay jannada galisay hoosteeda aljannatu tahta aqdaami ummahatikum rasuulku xadiis kale ku yiri halka diintu saartay jannada galisay hoosteeda oo hiiro inay tahay ayaan helay akhbaarkeeda sagaalkii bilood ee horeen hurudnay urkeeda hakad baa talaabadii galay oo hiirgabay noqotay hilibkii iyo bariiskii cuntada ka hortimo diiday waxa hawlay hooyada ilmaha ku hiilan urkeeda iyadoo habkaasay marqudha soo herdiday fooshu halhaleel nafteediyo markii hadadi loo yaabay oo hiilkii ilaahba ilmi hore u soo dhaafay iyadoo hafeefanaysa oo habayo dhiigiina horaadada intay noo dhigtay waliba noo heestay annagoo hadaaqayna hooyadu wax cajiiba wiil ilmo yar bay la hadlaysaa hawaalo waran baa la yidhahdaa af soomaaliga waxaasaa jira waxaasaad noqonaysaa ilmo yaroo haddaba u warramaysaa waxaasaa jira maaragta sidii xadiiskii rasuulka gabadhii tidhi ninka xoogga weyn uu soo maray ay tidhi ilaahayo wiilkayga ninkaasoo kale ka dhig uu yiri ilaahu hayga dhigin iyadu waxay islahayd indhaheeda wixii qabanayay markaa wiilkaagu ha noqdo sida ninka annagoo hadaaqayna bayna la hadlaysaaye caanahay habeenkii inagoo hurudna ay qooshto hore naga masiise iyadaa ku hormartoo eegta hareeraha ayay eegaysaa gogosha hoosteeda ammaankeenna yay hubinaysaa had iyo gooraale qofkii hooyadii nooshahay oo hadal xun ha u quurin ha ku oran warayka ha ka too huriya laabteeda qofkii hooyadii nooshahay oo waa hantiyo maale war waahibo ilaahay baxshiyo hodonka deeqdiisa haddii hooyada ay hantiyo halal ku weydiiso oo aadan hayn oo markaa heli karayn taagga haye hooyo hadalkaagu waa inuu ahaadaaye أنا من بريك كان صودعة سلامته قيلة بدنا لا بقول ما كوسو درني هيا هوي هذا الكاغوين وهذا هرك عليها بينكو دم يريهير توابريجا وحيكو همدا وإنا نهرو مرقارناي هوم بوي هدي أي دشيو هاو كسيليتا هودر إيو هل يبان دلايكو هنشبيساي هبارنو مقودة دعينه وينيساي qofkii hooyadii nooshahay oo hadal xun ha u quurin ha ku oran warayka ha ka too huriya laabteeda qofkii hooyadii nooshahay oo waa hantiyo maale war waahibo ilaahay baxshiyo hodonka deeqdiisa ducadii baan ku soo gabagabaynayaa hooyadeen ilaahay oo ka hay dhibab halaakeeya amiin hooyada ilaahay oo ka hay dhibab halaakeeya hodannimo ilaahay oo ku sii dunida hooskeeda عافيمات ربك وتاهد يقرالي هدي وقتك سوقلو ملقوه مايو هول يران إلهو نفتي هذا دلوقاتو هقا إيو إلهو قبرك يهانا توحيدك هلك اللقو هكنا إيو برساخة هاد عقبو سيحي إلهو جنده هالعستا إيو هباقيدا وهلكي قيامة ربو هقر لآن دافي هاوية إلهي وكهاي نارتو وهاليسي هلكي نبيقو شوقيو ربي يولقو هقا خيركا هل أبو الرباچري إياقو هوري وفاليي هو يضعو كور رمي هل أبو الرباچري إياقو هوري وفاليي هدراويو عريس عيسى واقو هورييني وهنكي أفسو مالي هوري وقاتيني هالكي أي ديغان أنيغا أون هادل كو غارينين انتاسان كسو هوري يونكو هاكينا ياي